ayaa ku geeriyooday dagaal maanta ka dhacay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad shicib ah kuwaas oo isugu jira ciidan iyo shicib dagaalkan ayaa sababay iska horimaad dhex maray ciidanka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale kooxo maleeshiyada kuwaas oo soo weeraray ciidanka qaranka Soomaaliland guud ahaan magaalada Ceergaabo waxaa ku hareeraysan ciidanka kala duwan ee Soomaaliland khasaaraha kala duwan ee dagaalkan inkasta oo aan si rasmi ah ilaa hadda warbixin aan uga soo saarin xukuumadda Soomaaliland haddana dagaalkan maanta dhacay waxaa lagu qabtay maxaabiis badan oo ah raggii soo weeraray ciidanka qaranka goobo badan oo ka tirsan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaa heegan la geliyay ciidamada kala duwan halkan aan ku suganahayna waa mid ka mid ah wadooyinka magaalada Ceergaabo halkaas ay ku sugan yihiin ciidanka qaranka Soomaaliland ilaa hadda xukuumadda Soomaaliland wax faahfaahin kama soo bixin xaaladda magaalada Ceergaabo caaw oo iminka ay tahay saacadu 9 iyo xoogaa xaaladda magaalada Ceergaabo ayaa degan hase ahaatee way jirtaa rasaas goosgoos oo meelaha qaar ka dhacaysa waxaana dhici karta saacadaha soo socda iyo wixii ka dambeeyaba in xaaladdu wax iska bedeli karaan maadaama ay magaaladu gashay xaalad colaadeed iyo jawi nabadgelyo darro ciidanka kala duwan ee qarankana waxaa la geeyey goobo badan oo ka tirsan magaalada iyadoo amniga guud ee magaalada guud ahaanna ay ku sugan yihiin ciidanka militariga iyo sidoo kale cutubyo ka tirsan kuwa aaraariyada wixii warar ee ka soo kordhay xaaladda magaalada Ceergaabo waxaad kala soconaysaa bogga Siciid Qurbaawi